madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furay kala fadhiga labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kaahi ayaa lagu qabtay xafladda furitaanka kala fadhiga labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. madaxda qaranka ayaana ka qayb gashay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeenno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa, wasiiro iyo xildhibaano, saraakiil, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wakiilo ka socday beesha caalamka, safiirada qaar ka mid ah dalalka carabta Soomaaliya u fadhiya, u qaybsamaha gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo fanaaniin ayaa ka qayb gashay xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland oo ka mahad celiyay ku casuumada xafladda ayaa sheegay in dalka dhibaato badan uu soo maray dadaal dheer kadib hadda ay muuqato rajo shacabka u horseedi karta mustaqbal dowladnimo oo wanaagsan. golaha shacabkana looga baahan yahay in uu dalka gaarsiiyo doorasho ku dhacda hanaan hal qof iyo hal cod ah. haddii aanu midowno wanaagu waa soo degdegaya, horumarkuna waa soo degdegaya, isbeddelkuna waa soo degdegaya. haddii aanan midoobin oo dhibta jirta aanan u midoobinna dabcan xalku iyo wanaagga aan rajaynaynay waa ay sii dheeraanayaan. ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maanta haddii intaasi fadhiyaan in ay la shaqeeyaan oo kaalmeeyaan oo gacan siiyaan si aan ku noqono dawlad adag. waxaan yaryarkahay waa iska dhammaan doonaan, abaartana ilaahay ha naga bixiyo, ummadda Soomaaliyeed ee qalbigeeda ha isku dumo. golaha shacbiga qaranka waa astaanta qaran, waa sharafta qaranku leeyahay, waa muraayadda shacabka laga fiirinayo. waxaad matashaani waa shacabka, systemkan federaalka idinkaa matalaya. waxaan idinka sugaynaa inaad dhammaystirtaan shuruucda waddanku u baahan yahay ee ka dhiman oo aad ku mashquushaan bal sida aan berri ku gaari lahayn hal cod iyo hal qof iyo doorasho fura waddankan inay ka dhacdo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa sheegay in waxyaabaha golaha shacabka looga baahan yahay inuu xooga saaro ay ka mid yihiin maqaamka Muqdisho oo uu sheegay in ka maamul ahaan wada tashi kala sameyn doono shacabka Muqdisho. go'aanka maqaamka magaala madaxda Muqdisho iyo soo saarista sharciyadeeda gaarka ah waxa uu dusha u saaran yahay golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh ee aan maanta hor joogno. annaga ka maamul ahaan gobolka Banaadir waxa aan geed gaaban iyo geed dheer u fuushanahay in aan wada tashi buuxa oo baahsan la sameeyno dhammaan qaybaha dadka reer Muqdisho. muqdishaawiyiinta waa shacab adkaysi badan, dulqaad badan, bixiya canshuurta, raallina ka ah dowladda federaalka iyo hay'adaheeda federaalka ee ay gogol u yihiin. gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka ballan qaaday shacabka Soomaaliyeed in xildhibaanada golaha shacabka xil gudashadooda ay ku saleysanaan doonto hufnaan, karti, wadannimo iyo ilaalinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. mudane madaxweyne, waxaan adiga iyo xukuumadda ku xaqiijinaynaa shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan u ballan qaadaynaa in xildhibaanada golaha shacabka xil gudashadooda ku saleysnaan doonto hufnaan, howlqabadkooduna ku dhafnaan doono karti, wadaninimo iyo ilaalinta xasiloonida siyaasadeed oo shacbigeena iyo dowladnimadeeda ay u doontaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya xilkiisa dastuuriga ee ku xusan qodobka 9aad ee dastuurka ayaa si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda, wuxuuna ku dheeraaday waxqabadka dowladda muddadii dhowrka bilood oo ay jirtay, marxaladihii dalka uu soo maray iyo rajada hadda muuqata dib u habeynta hay'adaha garsoorka ee dalka ayuu ka hadlay iyo dagaalanka cadaalad darrida iyo musuqmaasuqa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday guulihii laga gaaray shirarkii caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka iyo qodobo kale.
wuxuuna tilmaamay in dowladda ay fulinayso waxyaabihii ay shacabka Soomaaliyeed ka ballan qaaday isagoo dhinaca kale ka codsaday golaha shacabka in uu ansixiyo hindisi sharciyeedyo dalka muhiim u ah oo ay xukuumadda u gudbin doonto. mudanayaal iyo marwooyin muddadii koobneed ee dowladda ay jirtay waxaa noo qabsoomay hawlo aan doonayo inaan halkan ka sheego muhiim ah. joogtaynta mushaharka iyo gunooyinka hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka, xukuumadda, hay-adaha amniga iyo shaqaalaha rayidka. ka guulgaaridda xakamaynta hubka sharci darrada lagu wato magaalada Muqdisho. hawlgelinta ciidamo gaar ah aan u asteennay inay soo celiyaan nabadgelyada magaalada caasimadda Muqdisho. qaadidda jidgooyada sharci darrada ah oo lagu waxyeelayo shacabka Soomaaliyeed. ka soo hoynta guulaha shirarkii caalamiga ahaa sida kii London, guulahaas oo ay ka mid yihiin qorshaha horumarinta qaranka oo lagu saleeyo mashaariic ay maalgeliyaan deeq-bixiyaasha. xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. dib u hanashada saxiixa deeqaha kuwa bixiya oo ku bixiya magaca Soomaaliyeed. awooddaas oo muddo dheer gacanteena ka maqnay oo hadda aan qayb ka nahay saxiixayaasha. dhamaystirka heshiiska duulimaadyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. dib u soo celinta duulimaadka habeennimo ee garoonka magaalada Muqdisho. dhamaystirka dib u hanashada maamulka hawada Soomaaliyeed ka hor dhammaadka sanadkan. aan rajeynayno inay gacanteena ku soo noqoto. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrinta dekadda Berbera wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay ku howlan tahay helidda xogta rasmiga haddii ay heshana ay la wadaagi doonto golaha shacabka iyo hay-adaha kale oo ay qusayso. anigoo tixraacaya qoraalkii iga soo gaaray guddoonka golaha shacabka bishii bishii May 2017 kaas oo ku saabsanaa heshiiskii Berbera waxaan caddeynayaa qodobadan sida ku cad dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 7 farqadiisa 2 4 iyo 5 waxaa waajib nagu ah ilaalinta madaxbannaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. 2 waxaan caddeynayaa in bilowga hawshan ay ka horeysay 8 Febraayo 2017. sidaas awgeed dowladdu waxay ku howlan tahay sidii ay u heli lahayd xog dhammaystiran oo la xiriira arrintaas. 3 markaan helno xog dhammaystiran waxaan la wadaagi doonaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha oo ay khusayso. mudanayaal iyo marwooyin, haddaba si aan u xaqiijino ballantii aan ummadda ka qaadnay waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh inay ansixiyaan 15 hindis sharciyeed oo ay dhawaan xukuumaddu idiin soo gudbin doonto. waxaan ku kalsoonahay ama kalsooni weyn ku qabaa in haddii hay-adaha dastuuriga ah ay wada shaqeeyaan ay wadaan ama qaadaan danta guud ee ummadda ay noo dirsatay in hadafkeennu oo aan doonayno inuu meel marayo waxaan gaari doonaa natiijooyinka waxqabad ee shacabku uu naga filayo. ugu dambeyntii waxaan halkan aan leeyahay kalfadhigii labaad ee baarlamaankii 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa noo furan yahay maanta. golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo kalfadhigooda labaad oo maanta furmay ayaa waxaa horyaala howlo badan oo ay ka mid yihiin ansixinta hindisa sharciyeedyo muhiim u ah dalka. Ibraahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.